kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii shabakada warbaahinta wadaagsan oo aan hadahan oo kale idin soo tamin jirnay qodobada ugu doorka roon ee maanta aan idin haynana waxa kamida maamulka Somaliland oo weerar culus ku qaaday dawladda PUNTLAN ALSHABAAB oo sheegtay inay dileen saraakiil iyo boolis ka tirsan madaxtooyada iyo qarax ka dhacay Muqdisho dawladda Soomaaliya oo hal sano kadib magacowday safiirkeeda u fadhiya dalka Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya CAWAD oo weerar culus ku qaaday Somaliland daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay subscribe saaro channelka gambaleelkana daaro si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo galino channelka haatana warkii inta aanan u gudagalin xiisada Somaliland iyo PUNTLAN dawladda Soomaaliya ayaa hal sano kadib u magacowday safiirka Soomaaliya ee Mareykanka Ali Shariif Ahmed ayaa loo magacaabay danjiraha Soomaaliya ee dalka Mareykanka waxaana uu booskaasi banaanaa muddo ka badan sanad Ali Shariif ayaa horay wuxuu u soo noqday diblomaasiga ugu sarreeya howlgalka dalka dhaca geeska Afrika ee wadamada Itoobiya iyo Faransiiska safiirka cusub ayaa waxa uu bedelay Axmed Ciise Cawad kaasi oo haatan ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka xeebta ugu dheer qaaradda Afrika Cawad ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyadoo aan la magacaabin bedelkiisa waxaana magacaabistiisa ahayd bilowga sanadka hore 2018 isagoo xaqiijinay in Ali Shariif loo dhiibay jagadaasi wasiir Cawad ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in Shariif uu dhawaan u socdaali doono Mareykanka Axmed Ciise ayaa xusay in Ali Shariif uu dhawaan u socdaalayo dalka Mareykanka isla markaana hadda loo diyaarinayo dokumentiyadiisa diblomaasiyadeed iyo dalku gal haatana xiisada Somaliland iyo PUNTLAN saraakiil ka tirsan ciidamada Somaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Laascaanood ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta talaabo ay qaaday PUNTLAN maamulka PUNTLAN ayaa kontaroolka laga galo magaalada Garowe u soo wareejiyay xuduudka gobolka Sool midaas oo si weyn uga caraysiinaysa ciidamada militariga Somaliland saraakiisha ayaa talaabadan PUNTLAN ay kontaroolka ku soo wareejisay ku sheegay mid PUNTLAN ay ku doonayso dhul aanay lahayn iyagoona xusay inay Somaliland marnaba ka yeelan in deegaanada bixin ay PUNTLAN ka bilowdo dhul boob saraakiishan ayaa sidoo kale waxay maamulka PUNTLAN ku eedeeyeen inay deegaanadaasi ay kaga wadaan xalal nabadgelyo darro iyagoona ugu hanjabay inay PUNTLAN deegaanadaasi isaga baxdo muddo 3 cisho gudahood ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday Somaliland wasiir Cawad ayaa sheegay in wadanka Guinea ay roog cas u dhigtay hogaamiye sheeganaya inuu ka go'ay Soomaaliya oo dalka kala qaybinaya isla markaana xusay inaysan talaabada Guinea marnaba waafaqsanayn xiriirka caalamiga ah wasiirka ayaa sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay in dawladda federaalku marnaba aqbalayn in la kala qeybiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoona digniin u diray wadamo kale oo uu sheegay inay gacan ku leeyihiin hawlaha lidiga ku ah midnimada Soomaaliya wasiirka arrimaha dawladda Soomaaliya ayaa yiri Guinea waxa martiqaad sida madaxda ah u sameysay hogaamiye ku andacoonay inuu Soomaaliya ka goosanayo marka waxaan u maleynayaa Guinea waxay u nuglaatay cadaadis dal kale uga yimid iyadoo og inaanay arintani ku haboonaan ay xadgudubna sameeyeen wuxuu intaasi ku diray hadii koox kasta oo tiraahdo waanu goosanayna uu dal u soo dhaweeyay sidii ay dawlad yihiin waxay dib u dhigaysaa in dadka Soomaaliya wada hadlaan marka qofku ma helayo wax ku dhiirigelinaya inuu Soomaaliya la hadlo hadii ay dawladuhu isaga dhigaan riib karabet ama rogcas marka digniin aanu u diraynay bay ahayd dalkaasi iyo dalal kale ee laga yaabo inay arintaasi gacan ku leeyihiin sida aanu ku helayna wararka qarax khasaaro geystay ayaa saaka aroortii hore ka dhacay degmada Waabari ee gobolka Banaadir qaraxa ayaa ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo la sheegay in lagu soo xiro miinada kuwa baabuurta lagu dhajiyo haatan Muqdisho ila deegaanka ayaa shabakada wadaagsan u sheegay in qaraxaas uu ku dhaawacmay qof rayid ah oo dukaan ku lahaa meesha uu qaraxu ka dhacay lama shaacin wali qofka watay gaarigan oo ku qarxay agagaarka saldhigga cusub ee degmada Waabari oo ku yaala agagaarka iska shaqaalaha Muqdisho ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe gaaray goobta kuwaas oo baaritaano ka bilaabay halkaasi shalay ayay ahayd markii qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka iska Balaaksi ee degmada Hodan kaas oo geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac wararka aan helayno ayaa noo sheegaya in ay Al-Shabaab sheegteen in ay dileen saraakiil ka tirsanaa madaxtooyada iyo booliska Soomaaliya Al-Shabaab ayaa baahiyay in dilka koowaad uu ka dhacay xaafadda Suuq Bacaad ee degmada Yaaqshid kaas oo ay sheegeen in loo geystay sargaal ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada oo lagu magacaabi jiray Cumar Colow sidoo kale waxay tilmaameen in xoogagii dilay ninkan ay mootadiisii qaateen
dhinaca kalena al-shabaab ayaa shaaciyay in sargaal kale oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku dileen gudaha degmada Dharkaynley ee gobolka Banaadir magaca sargaalkaasi ayay ku sheegeen xidigo Cumar Dhagajuun dilalkan ayaa ku soo aadaya xilli dawladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka booliska uu kordhiyo howlgallada ka socda gudaha magaalada daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ee warkeena inta aan warkan iyo warka xiisa badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas oo nabadgelyo